بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة barnaamijkii falaqaynta siyaasadda ee aynu kaga hadlayno maantay arrimaha shirka dhuusamareeb iyo waxyaalihii aynu isleenahay way ka soo bixi karaan oo aanu bal wax yar isla qaadaa dhigayno marka waa anigoo cali xirsi kaarsha kusoo dhawaada barnaamijka haddaan fiirino shirka dhuusamareeb ee ay iskugu tageen maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ka ah xuminta buuxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda federaalka uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo xubnaha kale wasiirada iyo xildhibaanada la socda iyo sidoo kale gudiyada iyo wasiirada iyo xildhibaanada maamulada dalka ama dowlad goboleedyada ka ah xubinta dowladda federaalka ayaan wax yar bal waxaan rabaa inaan xogaha aan helayno iyo qaababka shirku u socdo qaabka shirku u dhici doono iyo shir markii la qabanayo waxyaalaha laga filan karo oo ka soo baxa ayaan wax yar isla qaadaa dhigaynaa marka haddaan marka hore bal waan yar idiin jilciyo hor sideedaba haddii shir la iskugu yimaado oo uu shir dhaco waxa weeyaan qolo walba waxay la imaanaysaa ajandayaal qolo walba waxay la imaanaysaa wixii ayadu ay rabto ayay marka hore miiska soo saaraysaa miiskana waxaa la soo saaraa dhowr alternative micnaha midka kuugu adag ayaa la soo saaraa kan kuugu dambeeyana waa midka aan laba dhaafaanka ee aadan ka yani ka fuqaynin ama aadan ka marnaba aadan ka tanaasuleynin marka haddaan eegno maamul goboleedyada sidaba horta kuma midaysno hal fikrad oo midaysan male keliya waxay ku midaysnaayeen in shir la qabto doorashadana aan dib loo dhigin shirna loogu yeero dowladda federaalka ah saddexdaas qodob ayay ku midaysnaayeen saddexdii qodobna hadda way dhaceen qodobkii ugu horreeyey oo ah in shirkii loogu yeeray dowladda federaalka inay kasoo qayb galaan madaxdooda ee magaalada dhuusamareeb ka dhacay waa yimid waana la bilaabahayaa waana maanta ayuuna furmayaa ama caaway sida aan filahayo xogaha aan ku helayno waxaa la sugayaa madaxweyne deni iyo axmed iyo inay ayaan u malaynahay inuu axmed hadda yimid iyo in kale ma aqaan horta marka hore shirka ajandaha ay dowladda federaalka wadato madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu hogaaminayo waxa weeyaan in 2 sano loogu daro 2 sano markii lagu darana 2 sano ay doorasho cod iyo qofa ku qabtaan arrinkaas waxaa marka la wata oo ay isku dhinac ka yihiin gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenkiisa Muudey iyo gudoomiyaha guddiga doorashada xalime yarey iyo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gruubkaas wata xasan cali khayre xataa waa loo badinayo laakiin shuruudda waxay tahay haddii xasan cali khayre la daynahayo oo uu joogahayo oo uu la dhammaysanayo maxamed cabdulaahi farmaajo waa ogol waa okay weeye haddii laakiin maxaa la yidhahdaa la tuurahayo oo mucaaradka lagu qancinayo inay ra'iisul wasaare qaataan xasan cali khayre wuxuu ku mowqif noqonayaa ragga qaba inaan doorashada xilligeedana ay ku dhacdo doorasho dadbana la qabto aan waqtina lagu darsanin taas ayuu asaguna ku adkaysanayaa marka khilaafyana waxa waa jiraan baa la leeyahay laakiin aniga arrintaas si hoose uma ogi mana aaminsani in khilaafyo waaweyn ay jiraan waxaa macquula in la isqaybinayo oo mucaaradka qolo xasan cali khayre uu isku dhoweynayo iyo maamul goboleedyada si uu xogtooda u soo helo maxamed cabdulaahi farmaajona uu iska dhigayo nin ay iskhilaafsan yihiin asaga iyo xasan cali khayre laakiin aniga ma aaminsani inay iskhilaafsan yihiin waxaan aaminsanahay farmaajo iyo xasan cali khayre waa shaati iyo surweel iyo ninkii wata weye yacni waxa weeyaan waa waxa soomaalidu waxay yidhahdaan qofkaas iyo micnaha waa dameer iyo labadiisa dhagood macnuhu waxa weeyaan waa isku mid weeyaan taas ayaan anigu aaminsanahay laakiin xasan cali khayre waa nin sexsexda oo doonaya inuu mucaaradka xog ka helo barnaamijkaasna dowladda Qatar iyo Fahad Yaasiin iyo raggaas ayaa wadaan in la iska dhigo in la iskhilaafsan yahay si xogta loo soo aruursado marka xasan cali khayre iyo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dowladdiisu waxay wataan 2 sano in loogu daro baarlamaankana la daayo 2 sano baarlamaanku ay joogaan hay-adaha dowladda oo dhan loo kordhiyo kabacdina doorasho cod iyo qof ay qabtaan laakiin su-aashu waxa weeye ma qaban karaan weye
waxaan aniga aaminsanahay 4 sano waxay ku qaban waayeen doorasho cod iyo qof inaan la qaban karin waxaa ka horeeya in dhulkii la xoreeyaa ka horeysa in dadkii la rejistareeyaa ka horeysa in maxaa la yidhahdaa lacagtii adduunka ay bixiyaan ka horeysa in la sameeyo maxaa la yidhahdaa sharcigii maxaa la yidhahdaa jinsiyadaha la baaskareeyaa ka horeysa oo yaa muwaadin ah la yidhahdo marka hore qofka muwaadinka xaggee degan yahay halkee buu ka codaynayaa imise koonta micnaha imise meel ayaa la dhigahayaa sanduuqyada dadka tirakoobkiisu waa imise kursiga halkii kursi imise qof ayaa micnaha loo qoondaynhayaa imise micnaha kursi ayuu baarlamaanku noqonayaa ma baarlamaankan 275 ayaa lagu micnaha lagu xadgoynaya mise mid kale ayaa la dooranaya oo tirada waa la badinaya ilain dadka kursiga markii la cadeeyo oo la yidhahdo halkii kursi waa 10,000 oo qof qofkii hela 10,000 oo qof wuxuu leeyahay kursi baarlamaaniye waa in loo divide gareeyaa dadka registrationka codayn kara markii la registareeyo waa in iyo dadka iyo tirada ummadda waa in inta la isku daro loo qaybshaa kuraasta markaasna ay soo baxdaa intaasoo kursi marka hadda anaga hadda waddamada adduunka oo dhanba yani sidaas ayaa loo xisaabiyaa taas waa marka maxaa cabdullaahi farmaajo arrinta ay wataan waa middaas midda ugu weyn ay wataan 2 sano weeye kabacdi waxaa laga yaabaa ugu dambayn 1 sano inaysan ka kicin oo ay yidhahdaan annaga 1 sano wixii ka badan ma yeelin 1 sano in nala kugu daraa rabnaa oo ay 1 sano iyo 3 bilood oo kale ay intii ay sheegtay xalimi yari 13 bilood ama 9 bilood taas waa mid oo ay doorasho ku qabtaan dhinaca kale baarlamaanada dowlad goboleedyadu u badan yihiin waxa weeyaan in doorasho dadban dhacdo oo ay doorasho dadban dhacdo waqtigeedana lagu qabto waxayna ka midaysan yihiin xisbiyada mucaaradka xisbiyada ugu waaweyn sida wadajir iyo xisbiga UPD iyo xisbiga himilo qaran iyo shariif sheekh axmed iyo madaxweyne xasan sheekh iyo ay kala hogaamiyaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ama madasha xisbiyada iyo xisbiga wadajir ayaa la dhihi karaa ayaguna waxay wataan in doorashada waqtigeeda ku dhacdo doorasho dadbana la qabto sababta guddigii baarlamaanka waxay yidhahdeen anagu doorasho ma qaban karno maxaa la yidhahdaa doorashadaasna waa inay xilligeeda ay ku qabsoontaa haddii ay xilligeeda macnaha waa in lagu daraa waqti oo guddiyadii ayaa dalbadeen waqti dheeraada waqtigaasna meesha inuu soo gala ma ahan in dowladda loogu daro ma ahan in hay-adaha dowladda loogu daro ma ahan extension ma jiro waa in loo dhaqaaqaa in la qabto doorasho dadban oo tii 2016 ama 2017 ay ahayd ay dhacday oo kale ah arrinkaas marka wuu adkaan doonaa sababta waxaa adkaanaya waxay tahay dowladda diidaysa dowladda markii diidan maamul goboleedyadii iyagina waa iska hor imaanayaan marka meeshaas waxaa ka imaan doonta dhibaato kale oo weyn ayaa ka imaanaysa haddii aan la helin isku tanaasul haddaan la helin taasi marka waa mid maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ayaguna waxa ay u dhow yihiin ama ay isku fikir yihiin inta badan xisbiyada mucaaradka ayay isku fikir yihiin sababta ay sidaas u leeyihiin waxay tahay ma doonayaan in maxaa cabdullaahi farmaajo oo 4 sano wax ku qaban waaye 2 sano intuu ku darsado asagoo barnaamijyo badan ay ka qabya yihiin inuu hadhow inta ku xoogaysto uu dhinaca kale u laalo ama xoogaga wadaniyiinta inta la aruuriyo hadhowna loo yidhaha waa lagu shubtay oo maxaa cabdullaahi farmaajo dowladdiisa ay ku shubtaan oo halkaasna uu 4 sano oo kale uu farmaajo soo fariisto taasna ma ay ogola maamul goboleedyada badan laakiin maamul goboleedyadu shuruudo ayay kala wataan matalan ba maamul goboleedka puntland waxa dhaqaale xumo ayaa haysa dad baa khilaafaad dhexdooda ayaa jira ninka la yidhahdo sheekh deni wuxuu rabaa xisbi buu furtaa hadda arkayseen dhaqaalo u baahan yahay xoogaa dhaqaale xumo ayaa ka jirta odaga waa lagu dhegan yahay haddii maxaa cabdullaahi farmaajo uu dhowrkiisa maaragtay isagoo dhaqaale uu xoogaagiis u tuuro wuxuuna leeyahay lacag baa naga macnaha ii sheeg naga maqan oo aan xaq u lahayn oo 11 milyan ilaa meelahaasa haddii waxaasna la siiyo maxaa cabdullaahi waa la shaqaynaynaa waana kala shaqaynaynaa in loogu daro xilli laysla ogol yahay sidoo kale jubbaland haddii axmed madoobe 4 sano loo saxiixo oo farmaajo uu iska yidhaha 4 sano dhammayso sharci baana tahay doorashadiina waa ogolaaday asagana waxaa laga yaabaa inuu kala shaqeeyo
waana arrimaha hadda ay ka wada shirayaan xalay iyo maantii ay hadda qolalka iskugu xirxiranayeen oo ay kala heshiinayaan taas weeye labadii sano ee la yidhi kumeel gaar ahaan bay ahayd waxa weeye axmed waa lagu soo dabahayey shuruudaha looga saxiixanaye waxa weeye haddaa rabtay 4 sano inaan kugu ogolaano sidaan iyo sidaan iyo sidaan rabnaa extension nagala shaqeey weye axmed marka asagana awshiisu waa sidaas waxa kale oo meesha jira ayagana maxaa la yidhahdaa maamulka hirshabeelle asna doorashaa kusoo socota waarana wuxuu rabaa inuu mar kale isoo sharaxo wuxuuna doonayaa inay dowladdu ka dayso musharaxa ay wadato iyo dhaqaalaha ay ku bixinayso iyo cadaadiska ay ku hayso ee asaga taageerto ama ay si dadban u taageerto ama ay isku dayso waarana halkaas ayuu isaguna maaragtay isheg uu arrintiisu ay ku eg tahay waxaa soo haray lafta gareen wuxuu rabaa xildhibaanada lasoo dooran doono maxaa la yidhahdaa isheg dambe ee lasoo xulahayo inuu asagu u madax bannaanaado oo mursal laga reebo guddoomiyaha baarlamaanka oo ay nabad iyo nolol ayaguna ay iyo muddayey inay meel ka saaraan asagana uu u madax bannaanaado soo xulista xubnaha baarlamaanka u gelahaya koonfur galbeed arrimahaasna waa haysaa xoogaa dhaqaale xumana waa haysaa odayga madaxtooyada oo ku bannaanta haddii xoogaagiis loo tuuro arrintaas weeye waxaa soo haray galmudug ayaga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kheyri 26 mashruuc ayay dhagax dhigeen iyo ballanqaadyo ay sameeyeen iyo maxaa la yidhaahdaa arrimahaas ay ballan qaadeen iyo dhaqaalihii ka xayirnaa iyo mashaariicdii laga xayiray iyo dhaqaalahoodii haddii la siiyo qorshaha ay leedahay ee ah inay dhulkeeda al-shabaab ka xoraysana ciidamada 21aad loo qalabeeyo ciidankoodana la qalabeeyo ciidamadan hadda la aruurinayana tababarkooda iyo qarashkooda iyo dhaqaalahooda iyo maaliyadoodana ay dowladdu bixiso oo ay inta laga dhisay hay'adahan institutionska galmudug ma doonayso inay ku dhex milanto macnaha khilaafaad u dhexeeya dowladda iyo maamulka ma doonayso sababta hadda ma awoodo inay khilaaf dhex gasho sababta waxay doonaysaa inay hadda isdhisto inay ciidamadeeda midayso inay siyaasiyiinteeda midayso inay dekedda hobyo dhisto in ay wadooyinka jidka gaalkacyo iyo hobyo la dhammaystiro in mashaariicdii la ballan qaaday ay dowladdu fuliso in shabaab ayay rabtaa inay iska riixdo oo iska fogeyso oo iskala dagaalantee inay shabaab la dagaalankiisa ay dowladdu tasiilaadka maxaa la yidhahdaa isheg dhaqaalihii ku bixi lahaa iyo istiraatiijiyaddii dagaal iyo maxaa la yidhahdaa rasaastii iyo taakuladii iyo waxaasoo dhan inay dowladdu la qabato oo ay dowladdu ay kala qayb qaadato dhaqaalo badan oo galmudug ka maqnaana la siiyo loo fasaxo mid kalena lagu taageero sababtaa waxay rabtaa inay dib heshiisiin qabato dhexdeeda waxay rabtaa inay maxaa la yidhaha shabaab iskala dagaalanto waxay rabtaa hay'adaha institutionska inay dhisato xabsiyo samaysato maxaa la yidhaahdaa isheg maxkamadaheeda dhisato arrimahaasoo dhan ayay doonaysaa marka dan waxay ugu jirtaa galmudug in dowlad maxamed cabdullaahi farmaajo loo dheereeyo si laysku waafaqsan yahay waayo waxay doonaysa dowladda hadda imaan doonta war uma hayso waxay kala kulmayso inay noqonayso dowlad ayada la shaqaysa iyo inay noqonayso mid ka hor timaada oo dana siyaasadeed oo kale sidii nabadii nololba meesha uga yeelatay ay u yeelato hadhow ay curyaamiyaanoo ay dhibaato u keenaan ma doonayso galmudug waxay rabtaa hadda siyaasad xasilan oo dhexdhexaada oo aan maamul goboleedyadana col la ahayn dowladdana col la ahayn inay ka shaqayso laakiin ay dhinaca dowladda u dhowaato si ay dhaqaale iyo u hesho taageere siyaasadda dhexdeeda ka jirtana ay wakhti ay ku dejiso oo ay amni iyo nabadgelyo iyo dhismo dowladeed oo ay ku samayso ay ugu jirto waana arrinta u fiican galmudug oo u wanaagsan weye waxaa kuu soo haray xibnaha mucaaradka ayaa kuu soo haray mucaaradka haddii lagu heshiiyo khayre qaatalaya booskiisa oo gorgortanku geli doono oo khayre la yidhahdo meesha ka baxo oo khayre mucaaradka ra'iisul wasaare ha la siiya hadday yidhaahdaan mucaaradka waa u dhammaata maalintaas maxaa yeele mucaaradkii dowladdii bay ka mid noqonayaan maalintaasay u dhammaanaysaa oo ay noqonayaan wax shuuqay ra'iisul wasaaraha la siinayaa ra'iisul wasaarahaasna haddii uusan noqon nin marka horeba ku yimaado shuruud ah in ra'iisul wasaaraha loo daayo awooddiisa dastuuriga dowladdana la qaybsado oo 50-50 loo qaybsado oo uu noqdo ra'iisul wasaare awood leh oo sharciyan iyo dowladda ay u yihiin maxamed cabdullaahi farmaajo oo faraha madaxtooyadu kala baxdo oo maxaa la yidhaha baarlamaanku faraha kala baxo oo ay mucaaradka ay shuruudo keenaan in
loo fasaxo inay dhaqdhaqaaqeedo siyaasadeed ay samayn karaan, shirarkooda qabsan karaan, meesha rabaan ay tegi karaan, xisbiyadiina loo rajistareeyo, maamul goboleedyadana lagala hadlo oo ay ka furtaan maxaa la yidhaahdaa xaafisyadooda ay ka furtaan. waxaa laga yaabaa in haddii wadahadalka loogu yeero isku celcelis markii la celceliyo oo arrinta ay qolaba wax ka tagto, in maxaa cabdulaahi farmaajo ugu yaraan 1 sano loogu daro, doorasho codii qof ku qabana la yidhaahdo, asna uu shuruudaha ay maamul goboleedyadu wataan uu aqbalo ayay noqonaysaa. laakiin waxaa qasab noqonaysa in maamul goboleedyada iyo mucaaradku ay isku raacaan arrintaas, laguna heshiiyo, communique ay ku jiraanna la soo saaro mucaaradku. haddii mucaaradka laga tashto oo la yidhaahdo ma ayagu meelna ma xukumaan, farax laga qaado, dhibaato ayay keenaysa. maxaa yeele taageerayaal badan ayay leeyihiin, magaalada muqdishona ku leeyihiin. waxay imaanaysa in iska horimaad iyo qalalaase iyo dowladda iyo shacabka inay madax isla galaan ayaa imaanaysa. waxaa imaanaysa in dowladdii iyo xubnihii mucaaradka madaxda ahaa ay madaxa isla galaan oo qaar la xirxiro ama loo diido shir inay qabsadaan, halkaasna ay ka dhalato fulkaano kale oo siyaasadeed ama fulkaane maxaa la yidhaahdaa dhibaato iyo dagaal iyo keeni kara iyo kala qaybsanaan kale oo hor le keeni kara. marka waxa weeyaan 2 sano ee maxaa cabdulaahi farmaajo wato iyo mursal iyo guddoomiyaha guddiga ay wataan iyo international community-ga oo ayaguna yidhi haddiinan doorasho qof iyo cod qaban lacag bixin mayno, ama doorasho la isku raacsan yahay oo qoran, doorashadu waqtigeeda ku dhacaysaa ma sababtaas saasay u dhacaysaa. matalanba waagii hore halka xildhibaan 50 qof ergaha soo doonin jirtay, hadda waa la badinayaa, 75 baa laga dhigaa ama 100 ergaha laga dhigayaa. meelahaasay ka dhacaysaa, shuruudahaasay u dhacaysaa, qaabkaasay u dhacaysaa. haddii la isku raaco oo wax qoran oo kulli dowladdii iyo mucaaradkii iyo maamul goboleedyadii ay isku raacsan yihiin oo wada saxiixaan, markaas international community-gu waa laga yaabaa inay lacagta bixiyaan. laakiin waxay ayagu barashgaraynayaan in maxaa cabdulaahi farmaajo loogu daro, asna lagu qasbo oo markhaati looga dhigo oo loo sameeyo maxaa la yidhahdaa road map loo sameeyo inuu qabto doorasho qof iyo cod ah. markaas ayay ayaguna lacagta bixinayaan. waxaana keenaysa nimanka xalano jooga ee international community-ga ee Nairobi fadhiya, haddii Soomaalidu aysan israacin, ayaga dowladaha lacag u soo shubi maayaan. waa inay wax isku jacburiyaan oo isku qasbaan oo isku riixriixaanoo si markaas la yidhahdo Soomaalida waa tanaa waxaanay rabtaa, dowladaha ay markaa lacagta soo shubaan sida Sweden iyo Maraykanka iyo Norway iyo Denmark iyo dowladaha deeqaha bixiya oo lacagaha international community qolyahan leeyahay u soo shuba weeye. ayaga waddan way ku daaleen, billions lacag bay shubaan, waxna horumar ma samaynayaan. billions lacag baa sanadkii $2 billion ayaa ku baxda Soomaaliya, meel ay aadana lama yaqaan. hal mashruuc oo la taaban karo ama isbitaal ama deked ama waddo ama aeroboor la dhisana ma jiro. meeshaasaa lagu kala goostaa Nairobi iyo waxa lagu cunaa xalane, diyaaradaha lagu kala raacraacaa, Soomaalidana way saxiixaan, lacagtuna sidaasaa lagu soo qaataa. marka arrintu halkaas ayay ka dhacanaysaa. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala shirka waxaa la isku haystaa shirka yaa guddoominaya oo wadaya. shirka sharciyan hadduu madaxweynuhu joogo ama ra'iisul wasaaruhu joogo, asagaa protocol ahaan guddoominaya. laakiin ajendayaasha shirka waa in marka hore laga wada hadlaayo, waa in laga soo wada hadlaa oo laysku soo afgartaa, oo markaas ajendayaasha ay wadaan guddiga farsamada ee shirka ee dowlad goboleed Galmudug, rag aqoon leh oo hadda aniga intaan ka warhayo oo yaqaana sida shirka loo wado ayaa jooga. raggaas waa in loo dhiibaa, raggaasna ay la shaqeeyaan qolyaha kale ee maxaa la yidhahdaa maamul goboleedyada kale ka socda iyo madaxtooyada. laysla shaqeeyaa, laysla qaabeeyaa ajendayaasha siday u kala horeeyaan iyo siday u kala fudud yihiin, loo soo kala hormariyaa, kabacdina maaragtay sheeg sidaas ay ku noqoto. laakiin shirka guddoomintiisa wax macnaha male, hadalka qaybintiisa iyo guddoonka iyo waxaas male. xogayn buu leeyahay shirku, qabanqaabayaal buu leeyahay, guddoomiye shir buu leeyahay. sidaas ayuu marka uu shirku ku dhici doonaa. sida brotokoolka caadigaana madaxweynaha ayaa shir guddoomin doona, wax dhiba iyo wax problemana male. waa isku soo noqon doonaa wixii soo kordha. khayr iyo guul iyo waxaan u rajaynayaa Soomaalida inay wax la taaban karo oo wanaagsan oo uga soo baxaan shirka Dhuusamareeb. khayr iyo qabar ayaan u rajaynayaa. magaalada Dhuusamareebna aniga waxaan u bixiyey Ceelgaduud ayaan u baxshay, maadaama dhulka la yidhahdo Galgaduud, magaaladiina la yidhi magaca laga bedelo. aniga wax dhib uma arka magaca, laakiin dadku qaar baa yidhaha laga bedelo. guddoomiyaha degmada Dhuusamareeb uu ka mid yahay. marka waxaan leeyahay Ceelgaduud loo baxshay maadaama gobolka Galgaduud la yidhaahdo. waana mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigoo Cali Xirsi Kaarshaw kaga tegaya kulan dambe oo xiiso leh.